aan lahayn wixii ku soo dhacaba iska sii daynayaa waxay daliil u tahay ama iimaanka tabardaran ama iimaan la'aan waay man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut ruuxa rumaysan inuu rabbigii la kulmayo maalinta qiyaamada ee aakhira jirto oo rabbigii hor istaagi doono waxa ka soo baxayana lagula xisaabtami doono soo macnaheedu maaha inuu islaalinayo soo macnaheedu maaha inuu isdhowrayo soo macnaheedu maaha inuu laftiisa u turayo macnaheedu wax weeye haddii taa la waayo macnaheedu waa meeshii waxaa ka baxay wixii xakamaynayay baa meesha ama yaraaday ama meesha ka baxay kelimada kaa soo baxaysaay waxaa laga yaabaa si fudud inaad isaga tidhaahdo laakiin hal kelimo oo aad si fudud u tidhi baad aakhiradaada iyo adduunkaagaba ku seegi kartaa nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi addoonku kelimad buu ku hadlayaa ilaahay raalli gelisa oo kelimaadka ilaahay jecel yahay ah kelimadaa uu ku hadlay umuuna fiirsanin ma uuna hubsanin kama uusan fikirin isma lahayn meeshaasay gaadhaysaa kelima afkiisa ka soo baxday kelimadaana waa ilaahay waa jecel yahay halka kelimada ka soo baxday ayaa allah tabaaraka wa tacaala darajaad ugu koryeelaya maalinta qiyaamada dhanka kale mid baa hal kelimad ka soo baxaysa uma fiirsan kamuuna fiirsanin ismuusan lahayn muusan ka fikirin hal kelima carabkiisa ka soo boota kelimadaasi ilaahay kelimaadka ilaahay cadhadiisa keenay ka mid tahay waa dembi iyo khalad kelimadii afkiisa ka soo baxday uusan u fiirsanin kana baaraan tegin ayaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam sababteedu naarta jahannamo ugu hoobanaya baa hal kelimo waa riwaayo kale waxay leedahay inta bari iyo galbeed u dhaxaysa qorax ka soo bax iyo qorax dhac waa inaan xad lahayn intaa in la-eg buu naarta jahannamo ugu hoobanaya hal kelimo uusan ka fiirsanin oo afkiisa ka soo baxday sababteeda war waa la iska daba imaanaya war waxaan xisaab bay leedahay war waad dhiman war rabbigaa baad la kulmi war adduunka joogi mayse war madax ahaan mayse war dhalinyaro ahaan mayse war caafimaad haysan mayse war afkan iyo carabkani sii jiri maayo war rabbigaa baad la kulmi doontaa war ka fiirso waxaa kaloo xadiidka bilaal ibnu xaaris uu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam ninku kelimad buu ku hadlayaa ruuxu kelimadaasoo uusan islahayn halkaasay gaadhaysaa oo ilaahay ridihiisa keenaysaa kelimadaas sababteed buu ilaahay addoonkaa raalli kaga noqonayaa ilaa intuu kala kulmayo rabbigii oo uu janno ka gelayo midna kelimad buu ku hadlayaa ilaahay cadhadiisa keenaysoo alla uusan jeclayn hal kelimad uusan islahayn halkaasay gaadhaysaa wuu kaftamayey wuu iska lahaa cadaawad baa ku xambaartay nin nacbaysi baa ku xambaartay qabyaalad baa ku xambaartay nafci adduunyaa ku xambaaray waxoogaa buu iska yidhi kelimuu yidhi ilaahay uusan raalli ka ahayn allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u qorayaa ilaa intuu rabbi kala kulmaya laga gaadhayo wuxuu u qorayaa rabbi tabaaraka wa tacaala cadhadiisuu u qoraya hal kelimaa ilaahay kuugu cadhoonaya cadhadiisuna kuu laasimaysaa ilaa intaad isaga kala kulmayso maalinta qiyaamada oo haddii isagoo cadhaysan aad la kulmtana maxaad ka sugaysaa marka jahannamiya naar baad ku hoobanaysaa waa hal kelimo waay war ka fiirso war caqliga ilaahay wuxuu kuu siiyey inaad carabka ku xakamayso garashada ilaahay wuxuu kuu siiyey xubnahaaga inaad ku xakamayso caqliga isticmaal isxakamee haddaad yeeli weydo soo maaha aday kuu taalla miaal buu nabigeennu bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay laba nin oo reer bani israa'iil ayaa waxay niman walaaloo saaxiibaah labada nin mid dembigu galaa nin dembiilo ahoo dembiga iska galo oo aabayeel lahayn waay ninna nin cibaadada ku dadaalo aad u dadaal badan waay
labada nin marka waxa weeye waa laba nin oo walaaloobay kan dadaalka badan ee cibaadada ku dadaal badani kan dambiilaha markuu soo maro isagoo dambi ku jiraba wuxuu ku yidhaahdaa wariyo dambiga iska daa war dambiga ka gaabso wuu waaniyaa maalin maalmaha ka mida buu soo maray isagoo dambi qasanaya markaasuu sidii caadadiisa hawaaniyey wuxuu ku yidhi war dambiga iska daa kii dambiilaha wuxuu ku yidhi khaliinii wa rabbii buu ku yidhi war aniga rabbiga isu kaana daa dhexdanada ka bax yaa ii soo kaa diray ma aniga inaad ilaalisaa laguu soo diray yaa igu kaa salliday adeero farax iga qaad aniga ilaahana isu kaana daa waa siday dad badan maanta yidhaahdaan kii mujtahidkaa ee cibaadada ku dadaalaha badaalka badnaayee waaninayey baa wuxuu yidhi intuu miyuu xanaaqay wuxuu ku yidhi wallaahi laa yakfiru allahu lak aw qaala laa yudkhiluka allahu aljanna wallaahi inuusan ilaahay kuu dembi dhaafayn ama wuxuu yidhi wallaahi inuusan ilaahay jannada ku gelinayn labadii ilaahay baa malag u soo diray oo naftaa laga qaaday oo ilaahay agtiisa ku kulmeen ninkii dadaalka badnaa ee qiirooday ee cibaadada ku dadaalayay ee wanaagga farayay xumaantana reebayay murguu rabbigii u tegay alla wuxuu ku yidhi isagoo canaananaya ma anigaad iga warhaysay mise waxa aniga gacantayda ku jiraad awood u lahayd sidee baad ku tidhi addoommadayda ka mida alla kuu dembi dhaafi maayo sidee baad ku tidhi addoommadayda ka mida dembigiisu intuu doona ha gaadho sidee baad ku tidhi jannada ilaahay ku gelin maayo seed hawshayda u gashay laanna janno yaa geliya cadaabna yaa dad ka badbaadiya ma cid kalaa shaqo ku leh allah keligii baa shaqo ku leh dunuubta yaa dhaafa alla keligii baa shaqo ku leh hawshaydii maxaad u gashay waa yaa ku geliya hawshaa iyada kadibna kii dembiilaha ahaa alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi kactag oo jannada gal naxariistaydana ku gal kii dadaalka badnaa ee cibaadada badnaana waxaa lagu yidhi malaa'igtii baa la amro qabta oo naarta u kaxeeya baa la yidhi tabaaraka wa tacaala abu hurayra oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay saxaabigu allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay wuxuu ku hadlay kelimad adduunkiisa iyo aakhiradiisiiba halaagtay ilaahay janno ku geyn maayo kuuna dembi dhaafi maayo kelimadaasaa afkiisa ka soo baxday cibaadadiisii salaadiisii khayraadkiisii wixii oo dhan way halaagta way baabiisay markaasaa naarta loo taxaabay kii dembiilaha ahaa ee dembigiisa qirsanaa waa addoon dembaabay allah tabaaraka wa tacaala dembigiina waa u dhaafay jannana waa geeyey war kelimada ka fiirso war imisaan maalinkii ku hadlaynaa war imisa carabkeenna ka soo baxaysa war imisaa dad laysku dirayaa wa imaa qabyaalad la faafinayaa wa imaa dad la durayaa imisaa acraad iyo xadgudub la samaynayaa imisaa maalinkii kaa soo baxaysa oo allah iyo jannadiisa aad kaga fogaanaysaa naar iyo cadaabna ugu dhowaanaysa war ilaahay ka cabso war naftaada u tug war cid kale ha u danaynin war imisaa gacantaadu qoraysaa maalin walba yaa iska qor hadal laakiin waxaad ogaataa haddaad sii noolaan lahayd ood adduunka joogi lahayd aadba iska guratide waxbay ahaan lahayd laakiin wakhti baad leedahay maalin baad leedahay carabkan kaasoo aad ku hadlaysaay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu awoodaa isagaa ku siiyey inaad ku hadashana ku siiyey intifaacsato oo waxa qalbigaaga ku jiriya damiirkaaga aad ku cabbirto oo dantaada aad ku gaadho ilaahay baa kuu siiyey laakiin markaad qalloociso ood rabbigaa ku caasido maxaad ka filaysaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ciddii ii damaano qaada inuu ilaalinayo labadiisa lafgadh inta u dhaxaysa waa afka iyo carabka inuu ilaalinayo ciddii damaanadeeda i siisaa labadiisa lugood waxa u dhaxeeya inuu ilaalinayana damaanad ii siiya waa xubinka taranka iyo farjige
wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam anuguna waxaan damaanad siinayaa inuu janno galayo dadka maxaa u badan oo naarta geliya la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka waxa u badan oo naarta geliya waa afka iyo xubinka taranka labada ruuxii dhowray nabigu jannadu u ballan qaaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi u damaanad qaaday ninkii dhowri waayana naar baa sugaysa allah tabaaraka wa ta'ala ugu goodiyay waa halis carabku marka waa khatar dadka badankood adduunkooda waxa halaaga waa carabka war carabku musiibu leeyahay war carabka kansar baa ka gali waa carabka hadalka laga qaadi war adduunka inta joogta aafa lagu guridi war hatta hadii lagu daayo lagu fasaxo waxba lagu guridin waxa ku sugaya soo qabri maaha waxa ku sugaya soo xisaab maaha waxa ku sugaya soo rabbiga hor istaagta maaha war carabka fasaadka ka ilaali war qabyaalada kada war umada aad isku diraysa kada war acraadan iyo dadka sharafkooda gaadhiso kada war xanta iyo xadgudubka kada war carabkaaga ilaali intaad rabbiga hortagi maalinta qiyaamada acmaashaada la qaybsan doona وحوغاغا صلاة دابا لغا قادن دونا قرآن أخرسكاغا للا تجي دونا عمردا دي حجكاغا لقادن دونا وماذا كلا جنت كوغلي دونا أذيقنا دنوتو دا دوشا لغا ساري دونا مركزا النار هذه دونتا سيدا النبي جينا كسوغا صلوات ربي وسلام عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الرسول قوحوك رسولك إلهي وحد جنة إقليا عذابنا إقبت بادية إيشك النبي قوحوك صلى الله عليه وسلم هو سؤال وين عدي إلهي أفضل ذي سواء أفضل ضاهي markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam arrimo badan oo khayrka u sheegay ilaahay caabud kaliya caabud shirkina ha galin salaada toosi sikada bixi soonka soon xajka xaji cibaadaad fara badan buu u sheegay ma taqaana ma ku sheegaa buu arrinka dhan waxa asaas ku ah islaamnimadii tiir dhaxaadka ma taqaana waa salaada kuruska meesha u sarreysa ma taqaana waa jihaadka waxa soo dhan markuu nabigu u soo akhriyay ayaa wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam akhbiruka bi milaki dhalika kullihi waxa soo dhan wax isku fuuqfuuqsadan ku sheega mucaado waxa soo dhan wax ka sayid calayhi oo isku fuuqfuuqsadan ma ku sheega bala ya rasuulallah iisheeg muxuu yahay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam carabkiisu qabtay buu mucaad baa dhahay markaas rasuulku carabkiisa qabtay markaas wuxuu yiri kuffa alayka hada kan iska qabo ya waxaan ku sheego dhan ee aan soo akhri ee khayraad ah waxa kulli wada isku fuuqsanayaa carabkaaga iska celi mucaad waayaabay oo rasuulka ilaahay waxaan ku hadlayna ma naloo qaban doona ma la isaga daba iimaan doona markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam thaqilatka ummuka ya mucaad mucaad hooyada ku weyday hooyada gablantay dadka ma waxa cadaabka ku duura oo ama daba ugu tuura ama madax ugu tuura ilaa wax carabkoodu uu kasbaday oo goosto oo shaqaystay mooyee maxaa dadka cadaabka ku daadiya naarta iyo jahannama soo wuxuu carabku shaqeeyay ma naloo qabanaya maxay tahay sidaas daraadeed kelimadu mas'uuliyad bay leedahay waana la isaga daba iimaan doonaa maanta kelimadu waxay goosay shalay waxayna goyn jireen shalay kelimada ka soo baxda dhowr ruux bay gaari jirtay dad yar bay gaari jirtay maanta laakiin kelimada ka soo baxday adduunkiya aafaaqday gaaraysa qaaradahay gaaraysa imise bini aadam bay dambaajinaysaa imise dhag ku dhacaysa imise khalqi gaaraysa imise fidna abuuraysa maanta kelimadu waxay gooysaa waxayna shalay goyn jireen war taxadara war isilaali war carabkaaga ilaali war xubnahaaga ilaali war ilaahay ka baq war waad hortagi doontaa war janniya cadaab baa jira war hawsha adduunka la joogi maayo war caafimaadkiya ladnaanta lagu jiri maayo war qabri baa jiro qiyaamaa jirta war jahannamo iyo siraadkeedaa jira war janniya naar baa jirta war cadaab ilaahi cadhadiisa iyo ridihiisuba waa jiraan war adalow ilaahay ka bar allahumma alballaqtu sallu wa sallimu ala qaatimi al-anbiya wal mursalin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم
subxaana rabbika rabbi اlcizati cama yasifuuna wsalaamu cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin.